السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان تاgeerayaasha Manchester United meel kasta ay joogtaan waa salaamantihiin maanta waxaan idin wadnaa barnaamij falanqeyn aan kaga hadli doono arrimaha suuqa kala iibsiga waxaana barnaamijka maanta la falanqeyn doono saaxiibkeyga Huud Sheekh Cadaabe Huud soo dhawow waa maasanta Cabdiraxmaan oo ku dhaw barnaamijka adiga iyo dhamaan saaxiibada page ku xiran waa salaam Huud waa maasan tahay Manchester United maalmahan waxay aad u dhow joogtay saxiixa Jadon Sancho hadeertan ku dhow gabagabo marxaladii ugu dambeeyay taagan marka wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Manchester United ay ku dhowdahay 72 milyan marka bal aragtidaada Sancho misleedahay Manchester waa qaadan doontaa xagaagan maxay isku soo kordhin doonaa masal saacidi doona xil ciyaareedka soo aadan macna Ole Gunnar Solskjaer Cabdiraxmaan waa maasan tahay Sancho oo labada xil ciyaareed ugu dambeeyay Manchester aad u dhow joogtay waa ciyaariyahan markii loo eego hanaanka Manchester aad u soo baxay 100% waxaa aaminsanahay Manchester haddii Sancho heeso sanadka dambe in uu wax weyn ku soo kordhinayo sanadkaas ka warqabto kooxdu wuxuu u tartantay Premier League kaalinta labaad ay gashay Europe League booska labaad ay gashay waa laga qaaday sanadkan waxa isleeyahay haddii Sancho lagu soo daro squad-ka oo heeso macna Ole Gunnar Solskjaer iyo system-ka ee Manchester dhaqan ahaan u leedahay inuu yahay system oo counter attack ah Rashfordna garabkan bidix kaaga dheerayo Sancho-na garabkan lagu saaro Cavani kaaga horeey Bruno ku yahay kubad sameeyay waxa isleeyahay alla ilaahay Sancho waxa way baahida ugu badan Manchester ee u baahan tahay waa asiga kama qan marka laga tagay difaac ay khadka dhexe waa maasanta Huudo horta calaam su'aalaha dul taagan Sancho ninkan madaxweynaha oo ah Borussia Dortmund ilaa hadeertan qodobka la isku haystaa oo Manchester wuxuu ku adkeysanaysaa waxay rabtaa gorgortanka inay ku adkeyso 72 milyan ninkan waxa ku go'an 90 milyan ugu dambeyn in laga siiyo Manchester waxay rabtaa ugu dambeyn 80 milyan marka misleedahay mar kale iyo xil ciyaareed kale ay haddana arinta Sancho dib u dhici kartaa oo mise waxa qabtaa in maamulkan Man United reer Kalezer culays ka qaadi karaan oo wax walba ay sameeyaan ay ku keeni karaan Sancho Cabdiraxmaan marka la maasanta horta kooxdan Dortmund ee lahaan waa koox taqaano ciyaar adag in loo dheelo kooxaha yani ciyaartoy ka doontaan Dortmund way adag tahay in sahal loogu soo qaad ciyaariyahan inkastoo sanadka hore ee 120 milyan waxba kama dhibayna ay dhaxayeen haddana sanadkan waxa isleeyahay 100% inay meel dhaxdhaxaad isku imaan doonaan ee Manchester xataa ugu dambeyn ogolaa doonto 90ka waa isleeyahay ilaa 85 sababtoo ah Sancho sanadka dambe hadduu oo Dortmund ku gaaro lacagtan hadda ee Manchester yani ku rabto xataa uma gooy doono Sancho sida aan ka warqabno sanadka hore waxay yani ku rabto 120 milyan sanadka marka waxa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya 90 milyan ilaa 120 milyan marka waxa isleeyahay Manchester waa markii ugu dhowda ay Sancho qaada karto mid kale maamulka Manchester waxay sameeyeen yani isbedel maamul ay sameeyeen agaasimo ciyaaro iyo agaasimo farsamo ay sameeyeen waa maasantahay Huud arrin kale waxa jirta calaamad su'aal ah Manchester United ma ahan bartilmaameed kaliya Sancho waxa Sancho bartilmaameedkooda ugu weyn hadda suuqa waaye waxa jirto Declan Rice challenge waa aragtaa West Ham bayaan adag ay soo saartay oo qiimaha ay ku doonayso 100 milyan waan la socotaa saxaafada Ingiriiska halka ay gaarsiinayaan ciyaartooyda marka Manchester waxa waaye Rice waa bartilmaameedka hadda marka loo fiiriyo dhanka difaaciyada qadka dhexe difaaciyada number 1 oo ka yahay Rice marka misleedahay 100 milyan waxay ku noqon doontaa Manchester dabar jab ay ku noqon doontaa mise boqolkaas way bixin kartaa ama waxa leedahay boqolkaas waxay u gooysaa ciyaaryahan kale oo Rice-na bedelkiisa buuxin karo marka arinta Rice ka waran iyo qorshihii ay West Ham shilka soo saartay Cabdiraxmaan waa mahadsantahay saaxiib mar kale horta media Ingiriiska marka ciyaartoy Ingiriis ah yani aad ay u buuban ciyaartoyda Ingiriiska sida aan ka warqabno marka waxa isleeyahay aniga Manchester 100 iska dhaafay 80 milyan xataa ma ku reeyso Declan Rice sababtoo ah waxa la helay ciyaartoy ka fiican ka tayo fiican oo 50 milyan ilaa 40 milyan oo lagu heli karo marka inkastoo oo Ingiriiska media Ingiriiska ciyaartoyda aad u xayeysiiyaan waxa isleeyahay laakiin Manchester ila ma ahan cudurkan corona oo adduunka dhaqaalihi hoos u dhigay ila ma ahan Declan Rice ee Manchester intaas u qori doonto 100 milyan West Ham inuu ku adkeysanaysaa bayaanka soo saartay macallinkeeda xataa David Moyes wuxuu dhahay 100 ka badan oo u qalmaa laakiin aniga ismarihi 100 ee Manchester ka soo bixi doonta aad iyo aad Huud waa boonboonin saxaafada Ingiriiska meel ka tahay iyo suuq geynta waxa kale oo jirta calaamad su'aal kale ah Manchester United waxay suuqa baday goobaysaa daafac dhexe dadka liiska ugu jirna waxa kamid ah Rafael Varane oo Manchester inta badan ay ku raadinayso inuu yahay nin waaya arag ah guuleysta ah
iyo wiilkan kale Sevilla ciyaar koonda la yiraahdo iyo Pau Torres marka liis waa 5 ciyaaryahan oo Fabrizio Romano uu sheegay marka ka waran bal aragti ahaantaada adiga waa kay daafac ku soo baxay Manchester United Cabdiraxmaan Manchester waxa uu dhimatay sanadkan waa center back ma jiro ciyaaryahan la maani kara isaajin kara Bekari sida ka warqabno Manchester daafaceeda wuxuu noqday Basimir xil ciyaareedkan ku dhawaad Premier League waxa laga dhaliyay wax ka badan 42 gool 50 gool ku dhawaad laga dhaliyay ismaliya marka Manchester sanadkan in ay daafac dhaxlaan ay noqon doonto waxa say marka hadii aan u laabto ciyaartooyda ee suuqa baadida goobeyso waa sax waxa loo baahan yahay daafac la istaajiyo maxallahay ciyaaryahan Harry Maguire كو مدنانتي كود waxay Manchester siinay sida saxaabada ay leeyihiin Rafael Varane kaasoo guuleysta ah oo ciyaaryahan World Cup qaaday Champions League oo xiriir ah ku guuleystay 3 jeer oo xiriir Champions League ciyaartooyda Real Madrid ku guuleystay kamid ah ani marka koond ahaan iyo Rafael ahaan aniga dooq ahaan teeda markaan ka hadlayo anu waxaan Manchester u door lahay Julius Kounda sababta ugu dooraa waxay tahay Rafael aniga shakhsi ahaan قاب أو عيارة قاب أنا شخصيا يعجبني معهم وصح مانشستر إني أبغى عيارتو يقول استيال أو مانشستر ردوا حقوير عيارتو يقول استيال حقوير عقاب سو قادم ويأرجين لكن كل جوليوس كوندا أنا وحصله مانشستر هذا وصوب بحلاي وان أرد بدن وان تاكل بدن وان باس كيس الصحن نن أنا كبد مركو هي سيدي هاري مجوار أنا قلقلين واي مركا أنا وحصله مانشستر وحأنفعايو جوليوس كوندي هذه سوق قادتني دوان لي أرتدونا كراه وخفر بأرتدوني وليه لكن حصلها أنا مانشستر وحا سيوتبل كوه رفع جوليوس كوندي عن سوق قرني قبي وقدم بي مركو حارس إيش وقدم بي أنا كويديو وحتى ضبط كان صوص صار عنده جدول كي هوريال بريمير ليج على عيارات كل هذا كلاتي لو مانشستر يونايتد شنطة كل جوهر هذا الشاعي كل جوهر بيوجه دون تاك واحد ليدز يونايتد كده بحاجة دون ساوثهامبتون وولفز كده من ويست هام أستون فيلا marka taageeraalka aad ugu falceliyeen waxa leeyahay jadwalkii ugu fiicnaa Manchester shanteeda kun ugu horeeyay ay wajahdo tan iyo bixitaankiisa Alex Ferguson marka ka waran misleedahay Manchester United waa fursad wuxuu haystaa macal Ole oo xil ciyaareedkan oo si fiican ugu dagaalami karo maadaama ay muhiim tahay kulmada ugu horeeyay inaad badiso shantaada kun ugu horeeyay marka ka waran hudow sidee u aragtaa jadwalka toddobaadkan soo baxay Cabdiraxmaan waa sax toddobaadkan waxaa la soo saaray isku aadka jadwalka Premier League 2020 إيكو لو كنا بي اللباتن مانشستر مركا فنيو فرصة في عن هستا سيدا تاجرات وأركان أن سيدو كلوا وأركا فرصة آد وفي عنيستا مركا كل كواد على عيارت كوحدة ليدز يونايتد أو أقولوا كل عيارتو ساوثهامبتون على عيارتو أو وولفز على عيارتو أو نيوكاسل على عيارتو أو ويست هام على عيارتو أو سيفيل على عيارتو أو كوحة إسكاه ميديم لحد إسكاه وحاسيه marka shanta kulan ugu horeeyay Manchester hadii shanta kulan ay wada badiso ciyaartooyda moral ahaan oo dhismayaan ayadoo sanadka hore kaalinta ku dhameysatay hadii bilow fiican ay hesho sanadka hore Manchester waxa uu wareeriyay bilow hore ka khasmatay kulanka koowaad la dilay Chelsea ku dhacday Barage la gashay marka dhibaatooyinka marka kulamada koowaad adiga ee kooxda Barage iyo guuldarooyin ku dhacaan ciyaartooyda in niijaba ku dhacayo way niijabaan laakiin markii Leeds guriga ku disho oo Santis aad oo soo disho sanadkan Manchester waxyaabaha lagu amaano karo waxa kamid ah inta ugu badan caqabadaha waxay xalisay kooxaha yaryariska oo taakeynay marka laga reebo hal iyo laba oo xil ciyaareedka la soo dhaafay taakeey laakiin inta ugu badan way xalisay waxa isla sanadkan hadii saxiix sameeyso shanta kun ugu horeysay ay jilcan tahay waxa isla Manchester alla ilahay hanki aad u sii fiicnaa doonaa ama santa hud sheekh Cabdaa waxa la ku soo gabagabeynaa barnaamijkii gaarka ah aan kaga hadlayna arrimaha suuqa tan iyo barnaamij noocan oo kale aan kaga kulmeyno sidaas nabadgelyo